مع سند أسماء نبات في بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadkana daawanaya waa meel kastoo aad joogtaan waa salaamantihiin haddaan asmo u salaabto su'aashaadii runtii wigan hadda ayaa waxaa la celiyay 70 qof oo Soomaali ah oo runtii gobolada Mareykanka laga soo aruuriyay dadkaas oo runtii isugu jira laba qaybood waan gartay dadka la celiyay maxaa loo cuskaday oo loo celiyay dadkani waxay ahaayeen runtii dad markii hore wadankan yaraan ku yimi oo iyaga oo aan gaarin wali dhalashadii Mareykanka aan qaadan iyo baasaboorkii oo dambiyo kala duwan galay wadanka Mareykanka waxa jira sharci la baasgareeyay 1997 oo ah hadii qofku uu qaxooti u yahay oo galo hal dambi oo weyn in laga qaadi karo sharciga isla markaasna loo celin karo wadankii uu ka yimi marka inta badan kulligood waxay ahaayeen dad maxkamadda ay xukuntay oo dib lagu amray in la celiyo iyo qayb kale oo soo ogtahay 20 sano u dambeeyay Soomaali badan baa waxay ka soo galayeen dhinaca Latin America oo ka imaanay oo mangaliyo doona oo wadankan nolol fiican iyo sharci inay ka qaataan u yimi dadkaas qaarkood 3 sano 2 sano xabsi ku jireen iyagoo wali aan arkin banaanka ayaa la celiyay kadibna sharcigii loo diiday oo maxkamadda ay xukuntay marka diyaaradaas waxay ilaa 90 qof 20 kamid waxay ka soo jeedeen wadankan South Sudan Koonfurta Sudan iyo 20 Soomaali ah waxayna magaalada Muqdisho ka jiyay maalintii Jimcaha ahayd maxamuud 40 sano la soo dhaafay inta uu Donald Trump madaxweyne ka ahaa dalkan ilaa intee tiro leeg ayaa la celiyay dadka Soomaaliyeed waxa la celiyay ilaa iyo 140 oo diyaaradda u dambeysay la qaaday maalintii Jimcaha ahayd waxa kale oo jirta ilaa 4800 ayaa la amray in laga celiyo wadankan 4800 oo runtii la amray waa dad soo galay xiliyadii sagaashameeyadii oo qaarkood ay dambi galeen sharci laga qaatay wadankan joogay oo ka shaqeysan jiray oo qaarkood xataa ay ilmo ku dhaleen marka waxa dadku u joogi jireen oo shaqeysan jireen laakiin maamulkan Trump markii uu la wareegay 2017kii ayuu wuxuu dadada galiyay in dadka Soomaalida la celiyo oo wuxuu amray hay'adaha Homeland Security-ga taas ayaana keentay marka intii kale way joogaan anaga Maxamuud ahaan iyo hay'adaha wada shaqeynay oo dhan dagaal badan baan u galnay gobollo badan oo Mareykan aan tagnay gobollada Soomaalida aad ku degan yihiin waa ka ololeynay Washington baan tagnay anaga madaxda u xuquuqul insaanka oo kala duwan waxaan runtii sheegnay in dadka Soomaalida aan la celin karin wadankoodii nabad una ka jirin xilligan ayna ku habboonayn marka runtii maamulkan dhagjala uma siin oo maamulkan runtii dadka immigration-ka policy aad iyo aad khatar u ah ayuu kula dhaqmay oo Soomaalida kalimaad dad badan oo bal celiyay saa ogtaa muslim baan buu saaray qaxootigii imaan jiray oo dhan buu xayray marka waxaan oran karnaa saameyn weyn ayay ahayd 40 sano hadda uu joogo madaxweyne Trump xagga immigration-ka maxaa u qorshaysan Joe Biden arrimaha immigration-ka madaxweynaha la doortay Joe Biden runtii markii ololaha uu ku jiray waxyaabaha uu aad u ballan qaaday inuu wax badan ka qabto oo ka bedelo waxa kamid ah arrimaha immigration-ka saa ogtaa wadanka waxa jooga dad badan oo Latina oo ilaa 1 milyan gaaraya oo muddo badan dalbanay in la siiyo sharci maadaama ay dad isbeero oo shaqeeyo oo wax dambi aan galin dadkaas runtii mudnaantooda la siin doonaa iyo dhamaanba arrimaha immigration-ka laakiin waxaan filaynaa boqolkiiba maalmood u horeeya waxyaabaha uu qaban doono in kamid tahay inuu horta baankii iyo xayiraadii dadka muslimka la saaray oo ka qaado isbedel badan baan ka rajaynaynaa waana mid uu kale doorashada rajo badan baan laga qabaa in dadka minority-ga policy aad u fiican uu mataqaana keeni doono isagoo geyn doono labada aqalba in la baasgareeyo sababtoo inta badan marka immigration-ka waxyaabaha aadka wadankan u adag weeye waa in labada aqalba ay baasgareeyaan marka la suubinayo sharciyada cusub